بسم الله الرحمن الرحيم. الشركة المانتا عن سوق النبي وحكوسها بسيهاي شركة بيرات كشري ما نقامات كشوفلان هاي قبتين أي كذا اللي عندناها شوفلان كسر سنة شركة هي النوع اللي قبل هاي كاس المركوه رئيسة غير كمان عندهم بالتاجرين عندنا هورسي وضع وحاول وحانا طبعا أنا أقول إنه الدنيا يقط قرامة المدودي مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية وحان ربنا أنا أقول إنه أنا أقول الله إنه مقع جبوينك وحان ربنا وضن كنا مدبوب بهاي وضن هنا نوكا جبلان هذي شركي أرسلوا القبطي وحال الله في حمر مدحوين جبلان مدحوينه qaranka halka ay tageen iyo waftigoodii beelihii baa halka lagu rasharay ilaa 9 beelood oo degan dhulkan go'aan bay soo qaateen wixii ay soo gaabiyeen wuxuu ahaa tirka nabadda deegaanka Jubbaland beelihii degi jiray nuxurka illa fahmaa loo baahan yahay waxay ahayd tirka nabadda la soo qaaday iiga ilaa Muqdisho إن كسمة يلا ضد ما يستر بيدها يعني لكن واحد فاكتر في الصومال وسيدا هوي إن يبينه يسوي مادان رقم كود استعمالا وحي أي يسوي هانجر استعمالا هالكاس نبض لجوجارو أو وحيسو شيكتان أيوة قعمها سهيستان إن يقول شو ذي دونتان سو حريستان سيدا سيهاي دور دفتر كي يمدحونهم هالكنا أي مادان ويجوبشوك هذا وحنا سو قارية إن لليه هي شركة حمر طلبوا لغاية وكسمايا والله اللي شركة حلو لغاية دون كي مدحوين الفدرال كي كانوا يما Jubbaland بإسلاقاتين محاجر حمر لو لغاية وحاول تمر رفقا كجبتوني سومالي ذا حانو قد دقينا إن عرفتها اللي قد دايين بيراها هاي سعبكين دان طوضنا قوة هالين اللي قد دايين سمارا نحتال قارهان waxaan fariin u dareynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ka Jubbaland go'aankii aad soo qaadeen baan xambaarsannahay waan sugaynaa goosho way fidsan tahay waxaan rabnaa arrintaas inaan la turanturnaynin inaan la xannibin in meel fiican ay joogto aan dib loo celin imaada deegaanka gacmuhu haystaa goosho u fidiya wixii dhamaystirana annaga heshiinayna idinku goobjoog ka ahaado inta idinka hadalay waxaan kaloo leeyahay oo fariin u dareynaa dadka u dhashay gobolada ee xamar jooga ee meel kasta jooga daraadan lahayn dhaxan kaama celiyaan idinkay nabadooda ku xiran tahay innaga isfuran iska daaya meelaha iyo siyaasadaha ku jirtaan waan ka hadhay 18 gobol imaada danteena aan qabsano innaga isku deegaan innaga isfuran cid kale intay soo imaato cid kor ka saaraysa ma jirto aan sida aan u heshiin jiray oo deganaan jiray dhaqan oo aan u heshiinay ka soo baxa xamar oo imaado idinkuna intaas ayaan leeyahay adduunka waxaan leeyahay waan soo jeednaa hadda sida hore mani imaada wixii aad soo goyseen goobjoog ka ahaado cidii turanturaynaysan idinku ka qabto intaas ayaan leeyahay wax ka rag kale u dheebaya salaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh muhiimada ay waxaan kaliya odhanaynaa waa si adkeynayna shirka maanta xamar bisha shanteeda bariya oo ama barida bamidayda oo aan noqotay lagu baaqay shirkaas inuu waafaqsanaa in heshiiskii Addis Ababa ma aha mid ku socda jadwalkii loogu talagalay heshiiskaas inuu ku socdo xamar waa lagu soo dhamaystay madaxweynaha iyo madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha federaalka iyo dadkii mucaaradka ah oo xamar joogay oo 9 beelood ka koobnaa waxay heshiis ku soo wada qaateen in shirka ku xiga shirkan noqdo ka dhaco Kismaayo kaasaan anoo goosha hadda dhignay oo la sugayaa shir xamar hadda ka furan oo lagu talagalayo oo ama ay noqonayso in halkan laga aado ama xamar cid joogta ay ku qabato shirkaas waa qeyr mawduuc weeye lama socdo road mapkii loogu talagalay
in dib-u-heshiisiintii ka soo dhacday Addis Ababa nidaamkaas wuxuu dib u dhigayaa waxyaalihii la qaban lahaa sidii nabadda dhulka loo adkeyn lahaa sidii ammaanka loo sugi lahaa sidii dhulka loo soo celin lahaa sidii maamulkii lagu soo heshiiyey in dib loo dhiso oo la hagaajiyo qaybtiisa hore oo madaxweyne ku-xigeenku ay u dhisnaayeen in qaybihii dhinnaa maamulka degdeg loo dhiso ayaa shirkaasu carqalad ku noqonaya shirka dib-u-heshiisiinta iyo isa-saamaxa wuxuu ka dhacayaa Kismaayo gobashina ay taallaa annagu haddaan nahay golaha dhaqanka waxaanu leenahay shir xamar oo hadda ka furan ma jiray shirka Kismaayo la isugu yimaado dadka jooga oo u dhashay Jubbaland oo xamar jooga oo heshiiska ku soo galay xamar oo ahayd inay yimaadaan xilliyadii dhawaa ay soo raacaan madaxweynaha markay soo raacaan ay ahayd laakiin weli sii jooga shir kaleeto ma jiray halkaana la isugu imanaya halkaana waxa lagu dhisanaya halkaana maamulka lagu dhammaystiraya nin walbaana isagoo beeshiisii dhinac ka raacaya oo ay odayaashiisa dhaqanka iyo siyaasiyiintiisa hor socdaan ayaa waxa la dhisanaya waxaan kaloo adkeynaynaa ayaantan ciidamada amniga iyo ragga cidda ka shaqaysaba aan leenahay shalay waxaa dhacay qarax loo geystay golaha dhaqanka meesha ay degan yihiin oo odayaashu ay degan yihiin guriga ay degan yihiin hortiisa la dhigay ilaahay cid wax kuma yeelin laakiin waxaanu codsanaynaa in hay-adaha ammaanku ay foojignaadaan meelaha noocaasa oo kale ana ay iska xil saaraan ammaankeeda inay adkeeyaan oo aan loogu soo gaban bamba meel lagu aaso iyo qarax la dhigo iyo wax socdaba ammaanka odayaashu waa muhiimkii in la adkeeyaan hay-adaha Jubbaland ee amniga aanu faraynaa leenahay hal adkeeyo geelaha iyo meesha ay odayaashu ku shiraan oo fadhiistaan iyo guryahoodaba in si taxaddar leh loo ilaaliyaan taasna waxaan ka codsanaynaa hay-adaha amniga Jubbaland wixii kale oo hadda soo haray shirkaas shalay kii dhacay ayaana noqon dib u sii adkeynay oo ay yidhi shir dambe oo xamar ah annaga wada tashi dambe ama aan madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka hadday iyaga xoogaa hay-adahooda sare ay khilaaf ku jiro inay isa saxaan laakiin khilaafkaas oo uusan annagana soo saamayn oo shirka iyaga iyo nidaamkii aan ku dhisan lahayn oo lagu soo heshiiyey uusan dib u dhac ku samayn wabilaahi tawfiiq